والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، عدك يملا مقلا بارك الله فيكم. إن شاء الله تعالى كل ما أنت أنجو قبل إن نسكوكين حجيه إن شاء الله تعالى محاضرة إيه inta aan kari karo hadduu allah subxaanahu wa tacaala idmo marmarna inaan iska maqnaanaa dhici karta. marka insha allah waxaan ka hadlayaa hadda oon wax ka taaban doonaa fadliga ay leedahay salaada subax. fadliga ay leedahay salaada subax ayaynu taaban doonaa. sidii caado ii ahaydna insha allahu tacaala qodobo ka kooban oo dadku ay xifdin karaan ayaan wax ka taataabanaynaa. ilaa 10 qodob ayaan soo qaadanaynaa fadliga ay leedahay salaada hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala idmo. run ahaantii nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo galay wax aanu tirin karana ma aha. allahna waxa uu leeyahay wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuhaa. haddii aad tirisaan nimcooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala idin siiriya ma soo koobi kartaan. nimcooyin tiro badan buu ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiye. wamaa bikum min nicmatin fa min allah. wax alla waxaad haysataan oo nimco ah waa fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala. sidaa daraaddeeda qofka muslimka waxaa laga rabaa naxariista ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah fadligaas iyo galladda iyo nimcada uu u galay shukrinteeda. ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadaad buu nagu addoonsaday laga doonayo qofka mu'minka ah iyadoo ay ahmiyad ballaaran ay leedahay. cibaadaadkoo dhan ahmiyad ballaaran ay leeyihiin ayay salaadu ahmiyad goonni ah ay sii leedahay. khaasatan ay ahmiyad goonni ah ka sii leedahay salaada subax iyo salaada casarka. lagana doonayo qofka mu'minka arrintaasi inuu qiimayn badan iyo aad u weyn uu saaro. waad garanaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inta la dheelmiyey baa la qaaday samaawaadka dushooda la geeyey. markaasaa si toosa loogu soo dhiibay salaadii. wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam member dushiisa intuu fuulay buu ummadda baray salaadii qaabka ay u tukanayaan. ra'aytumuuni usalli buu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. u tukada saad ii aragteen anuu u tukanayo oo kale. intaa kuma ekayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii ugu qiimo badnaa ee uu ka dardaarmay bay ka mid ahay salaada asalaat wamaa malakat aymaanukum asalaat wamaa malakat aymaanukum isagoo leh buu rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam uu geeriyooday. haddana waxaa intaa ka daran qofka maalinka qiyaamo marka la soo saaro acmaasha ka dhexaysa addoonka iyo rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa ugu horeeya salaada. hadday salaadu hagaagto camalkiisi kale waa hagaagaya. hadday salaadii xumaato camalkii kale waa xumaanaya. ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati min camalihi alsalaat fain salaxat faqad aflaxa wa anjax wain fasadat faqad khaaba wa khasiruu yiri rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxaa ugu horeeya addoonka laga xisaabinaya salaada ugu horayso. salaadii haddii ay wanaagsanaato camalkiisii imtixaankii wuu ku guulaystay waana liibaanay. salaadiisii hadday xumaato imtixaankii waana ku dhacay waana guuldaraystay waana hoogmayaa oo waa halaagsamaya. intaa rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam kuma uusan ekayn. waxa uu noo tilmaamay ahmiyad ballaaran oo ay leedahay salaada. haddaba salaadihiio sidaa u qiimo badan ayaan waxaan rabnaa inaan wax ka taabanno. ciwaankeennana maanta uu yahay fadliga salaada subaxa ay leedahay. shareecadeennu ahmiyadda ballaaran ay saartay fadliga ayaa qofka mu'minka qalbigiisa loo gelinayaa oo waa la jeclaysiinayaa suu shaygaasi agtiisa ahmiyad ballaaran uga yeesho. fadligaa haddaba salaada subax waxaa ugu horeeya waxa qofku uu helayaa ajru qiyaami lleyl. ajar qiyaamuleyl baa loo qorayaa. qofkii oo habeenkii oo dhan salaatuleyl tukanaya ayaa loo qorayaa qofka salaada subaxa tukada. qiyaamuleylka waa cibaado aad u qiimo badan. waa qurbo iyo dhowaasho allah subxaanahu wa tacaala. shariicada rabbi subxaanahu wa tacaala bay ka mid tahay. sunnada nebigay ka mid tahay. khasladaha la mahadiye bay ka mid tahay.
madarasada iyo iskuulka lagu qaata iimaaniyaadkay ka mid tahay, khalwada iyo la gooni noqoshada addoonku rabbigii uu la gooni noqday ka mid tahay. bal arrinkaa aada u fiiriya, waa khalwo addoonku ilaahay subxaanahu wa tacaala gooni la noqonayo oo uu la faqayo. qur-aankuna oo tilmaamaya dadka ulul albaabka unbaa arrinkaa ka faa'iidaysa, dadka caqliga iyo samca ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo garasho uga faa'iidaystay, gartayna waxa loo abuuray ee loo keenay. sidaa ay tahay, khasladaadkaas oo dhan, sifaadkaas la mahadiyo oo dhan, qofka marka uu habeen ma istaagayo daaco ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala abaalmarin buu ka siinayaa. salaadaasaa u qiimaha badan, qofka waxa uu ku helayaa salaadii subax qofka tukada isagoo waxaa loo qorayaa ajru qiyaamuleyl tukaday oo kale. yaa noo tilmaamaya arrinkaa? nebi moxamed baa noo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. waxa uu leeyahay man salla alcishaaa fi jamaacatin fakaannamaa qaama nisfa alleyl waman salla subxa fi jamaacatin fakaannama salla leyla kullahu, ayuu rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam uu leeyahay. qofkii kaca oo istaaga oo tukada salaadii cishaha jamaacad iyo salaadii ku tukada, fakaannamaa qaama nisfa leyl, waxay u dhigantaa isagoo habeenkii niskiisa tukaday oo kale salaatuleylkii. waman salla subxa fi jamaacatin, qofka salaadii subaxiina jamaacadii ku tukada, fakaannama salla leyla kullahu, waxay u dhigantaa isagoo salaadii leylka habeenkii oo dhan tukanaya oo kale. rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam ahmiyadda ballaaran ee uu siiyey saxaabadu ay siin jireen, khulafaa'u raashidiinka ay siin jireen, waa la isweydiin jiray qofkii ka maqnaada fadligaas iyo khayrkaas aadka u tiro badan. bakr ibnu sulaymaan ibnu abi xasma waxa uu odhanayay cumar ibnu khadaab ayaa waxa uu ka waayey masaajidkii sulaymaan ibnu abi xasma ayuu ka waayey salaadii subaxa. cumar intuu ka lahay oo xaggii suuqa uu sii aaday, sulaymaanna gurigii iyo masaajidkii iyo suuqa uu u dhexeeya gurigiisa, ayuu wuxuu soo maray islaantii shafaal la odhan jiran ahayd. markaasaa wuxuu ku yidhi lam ara sulaymaana fi subxi, sulaymaan maanan arag salaadii subaxa kuma aanan arag buu yidhi. markaasay waxay tidhi innahu baata yusallii fagalabathu caynaahu, habeenkii oo dhan buu salaad u taagnaayoo indhihii baa ka qaalib noqdoo ka xoog batay. cumar baa waxa uu yidhi lian ashhada salaata asubxi fii jamaacatin axabu ilaya min an aquuma alleyla, salaada subaxa in aan tukado oo aan ka qayb galo ayaa la iiga jacayl badan yahay habeenkii oo dhan in aan tukado aan salaad u kaco, taasaa la iiga qiimo badan, ayuu rasuulku sala allahu cumar ibnu khadaab uu leeyahay radia allahu canhu. haddaba walaalayaal, fadliga ay leedahay salaada subaxa waxa weeye ajru qiyaamu leyl baa loo qorayaa qofka salaadii subaxa tukada. fadliga labaad oo ay leedahay salaadii subaxa qofka tukada, annuuru taamu yowma alqiyaama, qofkii waxaa la siinayaa nuur iyo iftiin dhammaystiran maalinka qiyaamo. marka ay dadka ay weynayaan waxay iftiinsadaan, wixii nuur ah marka ay waayaan ayay helayaan dadkii salaada subaxa tukan jiray, waxaa weeye nuur iyo iftiin taama oo dhammaystiran. rasuul allahu calayhi waalihi wasalam waxa uu leeyahay bashiri almashaa'iina fi اdulami ila almasaajidi binnuuri الtaami yowma alqiyaamah. wuxuu rasuulku leeyahay u bishaaree dadka u socodka badan mugdiyada masaajidka aadaya nuur taama inay helayaan maalinka qiyaamo. almuraadu bilmashaa'iinka waxaa loola jeedaa aladiina yuksiruuna almashya wayactaaduuna dalika, kuwa socodka badinaya ee aadaya ee ka soo noqonaya ee aadaya, nuur taama iyo iftiin taamay helayaan maalinka qiyaamo, ayuu rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu noo tilmaamaya. waxaa loogu tilmaamayaa arrinkaasi faa'iidada iyo fadliga ay leedahay. hal jazaau lixsaani ila alixsaan, abaalmarin qofkii ixsaan la yimaadana waa ixsaan ka wanaag badan in lagu abaalmariyo. haddaba u fiirso, ta kuwaadi waxaynu nidhi fadliga ay leedahay salaada subax, ajru qiyaamu leyl baa loo qorayaa. fadliga labaad ay leedahayna waxaanu nidhi nuur taam ah ayaa la siinayaa maalinka qiyaamo, oo addoonkii uu iftiinsanayo nuurkii iyo iftiinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ugu deeqay. fadliga saddexaad
ee salaada subaxa laga helayaa waxay tahay albaraa'atu min annifaaq. qofkii waxaa laga tirtirayaa nifaaqa, jirada iyo uurka qalbiga ku dhacda ayaa qofkii laga tirtirayaa salaadii subaxa darteed uu tukanaya ayaa looga tirtirayaa. waxa noo tilmaamayo, waxa noo sheegayo waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxa uu leeyahay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam, salaatun ahqala cala almunaafiqiin, salaad uga culays badan ma jirto dadka munaafiqiinta dushooda oo min alfajri waalcishaai, salaada subaxa iyo salaada fajarka salaad uga culays badan ma jirtuu leeyahay rasuulka sala allahu calayh waali wasalam. tilmaantaa marka uuna siiyey ayuu rasuulka sala allahu calayh waali wasalam ubay ibnu kacab radia allahu canhu baa waxa uu leeyahay isagoo noo tilmaamayo, sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam yowman, maalin maalmaha ka mid ah rasuulkaana tujiye calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi rasuulkaana tujiye maalin salaadii subaxa, markaasaa wuxuu yidhi ashaahidu fulaanun ashaahidun war hebel salaadii ma yimid buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam. qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya rasuulka allow ma imaan. qaala wuxuu yidhi ashaahidu fulaanun hebel ma yimid buu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam. qaaluu waxay yidhahdeen laa. qaala waxa uu yidhi rasuulku, ina haatayni الصalaatayni ahqalu الصalawaati calى almunaafiqiin walow taclamuuna maa fiihimaa la'aataytumuuhumaa walow xabban calى الrukabi. labadan salaadood waa salaadaha ugu culays badan dadka munaafiqiinta dushooda. walow taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa fiihimaa waxa labada salaadood ee dhexdooda iyo ajri yaalla, la'aataytumuuha walow xabban cala arukabi, waad imaan lahaydeen idinkoo guurguuranaya ama dabada ku siqayaad imaan lahaydeen buu leeyahy rasuulka sala allahu calayh waali wasalam. fadliga iyo khayrka ay leeyihiin, faa'iidada laga helayo meesha uu rasuulku gaarsiiyey sala allahu calayh waali wasalam, waad imaan lahaydeen idinkoo dabada ku suqaya ayuu leeyahay. ahar cabdullaahi ibnu cumar radia allahu canhu bazaar kashful astaarka uu ku keenayo, sheekh naasir uddiin albani raximahu llah uu saxiixinayo fii saxiixi tarkiib watarhiib u keenayo, ayaa waxa uu leeyahay cabdullaahi ibnu cumar, kunaa ida اftaqadna arajula fi lcishaa'i wasubxi asa'na bihi danna. qofkii haddii aanu ka weyno salaadii cishaha iyo salaadii subaxa, asa'naa bihi danna, malahaanu u xumayn jirnay buu leeyahay. malihii lasoo tilmaamay ayaanu u xumayn jirnayo dadkii munaafiqiinta unbaa kadib dhaca rasuulka sala allahu calayh waali wasalam uu noo tilmaamayay. fadligaa intaa la eg ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa hanaga dhigay naftayda iyo naftiinaba kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala makaniya oo haleela oo geera. fadliga afraad ay leedahay salaada subaxi waxaa weeye ashahaadatu lmalaa'ika. malaa'igtii baa u markhaati kacaysa, malaa'igtii baa qaadaysa magiciisoo samaawaadkii geynaysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagoo addoommadiisa kaga xogogaalsan ayay intay qorto masaajidkii iyo daftarkii iyo magiciisii ay qortay qaadaysaa oo geynaysaa. rasuulka sala allahu calayh waali wasalam waxa uu leeyahay, yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatu bhaar. waxaa isku kiin cirbinaya oo isku kiin beddelaya malaa'igtii habeenkii idinla joogtay iyo tii dharaartii iyo maalinkii idinla joogtay. wayajtamicuuna fii salaati alcasri wa salaati alfajri, waxay ku kulmaan malaa'igtaasoy isku beddelaan salaadii casarkii iyo salaadii subaxa. humma yacruju aladiina baatuu fiikum, waxaa fuulayoo samadii aadaya malaa'igtii habeenkii idinla bariday ee idinla joogtay. fayas'aluhum allaa weydiinaya malaa'igtii, wa huwa aclamu bihim, isagoo kaga xogogaalsan oo ka warqaba addoommadiisa waxa ay ku sugnaayeen ayuu malaa'igtii weydiinayaa. fayaquulu wuxuu odhanayaa, kayfa taraktum cibaadii, addoomadaydii seebaad oga soo tagteen oo maxay ku sugnaayeen oo xaaladoodu maxay ahayd. fayaquuluuna waxay odhanayaan malaa'igtii, aknaahum wahum yusalluun wa aataynaahum wahum yusalluun. allow waxaanu ka soo tagnay iyagoo tukanaya, waxaanan u tagnay iyagoo tukanaya. bal camalka ugu horreeya fadliga iyo sharafta iyo karaamada uu leeyahay wax kale la weydiin mayo, zake la weydiin mayo, sadaqo la weydiin mayo, soon la weydiin mayo. malaa'igtii warbixinta ay bixinayso waxaa ka mid ah, allow waxaan ka soo tagnay iyagoo tukanaya, waxaanan u tagnay iyagoo tukanaya. fadligaasi u fiirsa marka.
malaa'igtii waxa ay qoraysaa daftaradii iyo buugaggii bay qoraysaa addoommadii waxay ka qoraysaa cibaadadii iyo salaadii dadka aan tukanaynin marka liiskaasi waa laga weynayaa gabadhana sidoo kale iyaduna fadligeeda gurigeeda meesha u qarsoon ee u dambaysay usii asturan salaada ay ku tukato fadligaa iyo ajarkaa way helaysaa in shaa allahu tacaala fadligaa iyo ajarkaana way helaysaa marka qofku muslimka waxaa laga doonayaa codkayga miyaa daciif ah baaraka allahu fiikum qofka muslimka waxaa laga doonaya marka in uu ka faa'iidaysto in uu raadiyo siduu waxa weeye uga qaybgeli lahaa markhaati inay malaa'igtii u markhaati kacdo war qofkay malaa'igta u markhaati kacday ka warran qofkay malaa'igtu buuggeeda ku qortay ka warran qofkii malaa'igtii waxa weeye cibaadaadka iyo wanaagga qoraya waxay la aadayaan markiiba ilayhi yascadu alkalimu alطayibu waalcamalu الsaalixu yarfuxu markiiba khayrkii bay la ordayaan oo ay qaadayaan allah subxaanaه wa tacaala xaggiisa la aadayaan malaa'igtaa marka khayrka qoraysay laba xilli bay noo yimaadaan waxa waddamada aan joognay laga yidhahda laba shifti shiftiga casarkiina malaa'ig baa imaanaysa shiftiga waxa weeye ama wareega subaxiina malaa'ig baa imaanayso oo isku bedelayso mid walbaba camalkii bay qaadaysaa mid kaley bedelaysaa oo keenaysaa oo malaa'ig kala imaanaysa sidaa daraaddeed waxay rasuulku uu noo tilmaamayaa yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu billeyli wa malaa'ikatu binnahaar waxaa isku kiin cirbinaya oo isku kiin bedelaya malaa'igtii habeenkii iyo maalinkii idinla joogtay wayajtamicuuna fii salaati alcasri wa salaati alfajri waxa ay ku kulmayaan oo isku bedelayaanna waa salaadii subaxa iyo salaadii casarka markaasay mid walbaba tegaysaayo uma yacruju aladiina baatuu fiikum tii habeenkii maridayna markaasay tegaysaayo samadii ay aadaysaa acmaashii ay qaadaysaa taasaa marka qofka muslimka laga doonayaa fadliga ay leedahay salaada subax in uu kaga faa'iidaysto qodobka afraad baynu maraynay oo qofka muslimka laga doonayo inuu arrinkaasi iyo khayrkaasi uu ka faa'iidaysto waxaadna halkaa ka arkaysaa qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala karaameeyey malaa'igtu ay qaaday malaa'igtu ay u markhaati kacday khayrka iyo fadliga uu helayo meelaha laga helayana wanaaggeeda iyo khayrkeeda addoonka in uusan dayicin khasladeenna shanaad ee fadliga ay leedahay salaada subax waxaa ka mid ah fii dimmati illaah addoonkii waxaa la gelinayaa waxa uu hoos tegayaa dimada iyo maganta allah subxaanahu wa tacaala war qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala magantiisa geliyey yaa ku xadgudbayo walaa shayaadiina alinsi waaljinni baana u soo dhowaan karin qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu maganta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu hoos tago ilaahay subxaanahu wa tacaala damaankiisa ammaankiisa cahdigiisa xifdigiisa ximaayadiisa iyo ricaayadiisa adduun iyo aakhiro waa xifdi aad iyo aad u weyn qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdiyo gaal iyo muslim qof kusoo xadgudbaya ma leh insi iyo jinni qof kusoo xadgudbaya ma leh bal arrinkaa isku day oo waxa weeye qofka muslimka ah meelaha aad waxa la caadaystayo looyar baan anigu samaysanayaa looyarka ilaahay subxaanahu wa tacaala magantiisa hoosgal ilaahay subxaanahu wa tacaala hoosgal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballanqa qofka salaada subaxa tukada in maganta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku jiro iska ilaali qof salaad subax tukaday in aad ku xadgudubto in aad wax yeesho inaad cirdigiisa wax ka sheegto inaad sharaftiisa wax ka sheegto waxay noqonaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala magantiisa adoo qofkii kala soo baxay oo kale ayay u dhigan tahay rasuulka waxa uu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiis imaamu muslim uu soo saarayo man salla subxa qofkii salaadii subaxa tukada fa huwa fii dimmati illaah qofkaasi waxa uu ku hoos jiraa dimada iyo maganta iyo xifdiga iyo ricaayada iyo ammaanka allah subxaanahu wa tacaala bal xadiiska aad u fiiri walaale ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuu magan siiye waa qof badbaaday wuxuu rasuulku leeyahay marka man salla subxa qofkii salaadii subaxa tukada waxa uu ku hoos jiraa maganta iyo ammaanka allah subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala magantiisa hana geliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdigiisa hana geliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ricaana geliyo qofka fadligaasuu helayaa rag iyo dumarba
qofkii arrinkaasi ku dadaalo waa fadli aad iyo aad u weyn, waa khayr aad iyo aad u weyn. qofkuu ilaahay subxaanahu wa tacaala magantiisii ammaankiisa siiyeyna waa qof liibaanay adduun iyo aakhiro. mar hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi anaa ammaan ku siiyey, anaa ku magangeliyey, cid kugu soo xadgudbi kartaa ma jirto. hadduu allah yidhi oo allah uu ballan qaaday, qofkaasi qof liibaanay ma aha. marka qofku allah subxaanahu wa tacaala xumaan oo dhan uu ka ilaaliyey, shirki oo dhan uu ka ilaaliyey, gaalnimo oo dhan uu ka ilaaliyey, cadaawad oo dhan uu ka ilaaliyey, waa qof liibaane weeye. qofki inuu liibaano hadduu doonayana waa inuu fadligaasi ka faa'iidaysto si allah subxaanahu wa tacaala magantiisa u hoostegi lahaa. fadli aad iyo aad u weyn weeye, waa khayr aad iyo aad u weyn weeye, waa wanaag aad iyo aad u weyn weeye oo qofka muslimka laga doonayo inuu arrinkaasi ka faa'iidaysto. fadliga lixaad ee salaada subaxa ay leedahay ee qofka muslimka laga doonaya waxaa ka mid ah annajaatu min annaar. qofku wuxuu allah subxaanahu wa tacaala ka badbaadinayaa, fadliga lagu siinayaa waxaa ka mid ah naartaa laga badbaadinayaa. war qasdigeenna sooma aha inuu ilaahay subxaanahu wa tacala naga badbaadiyo, jannana uu nageeyo. waxa la isu abuuray oo adduunyada la isu keenay cibaadada waxaa weeye faman zuxzixa can innaar وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. qofkii naarta laga teedo oo laga ilaaliyo jannana la geeyo waa liibaanay buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa casiiska ah. rasuulka waxa uu noo tilmaamayaa fadliga laga helaya salaada subaxa waxaa ka mid ah annajaatu min annaar. wuxuu rasuulku leeyahay xadiis saxiixa oo imaamu muslim iyo kayrkii ay soo saarayaan, bukhaari iyo muslimba ay soo saarayaan, man salla albardayni dakhala aljanna. qofka tukada labada qaboobe jannaduu gelayaa buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam. qofka labada qaboobe tukada waa salaadii casarka oo qofka hurdadii uu jecel yahay, iyo salaadii subaxa oo hurdadii uu jecel yahay, xoogaa isnabayo dhulka uu isku dhejinayo. qofkii inta kaca salaadii tukada jannaduu gelayaa buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. bal arrinkaa aada ugu fiirso. jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa silco qaali ah, waa badeeco qaali ah. laguma helo fadhi, laguma helo sheeko, laguma helo meelo iska joog joog. waxaa lagu helaa shaqo weeye iyo dhaqaaq iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la weydo. rasuulka waxa uu leeyahay man salla albardayni dakhala aljanna. qofkii waxa weeye labada qaboobe tukada jannaduu gelayaa. balse waxaa noo sii caddaynaya xadiiskaasoo fasir u sii ah xadiis kaloo imaamu muslim uu keenaya. rasuulka waxa uu leeyahay lan yalija annaara axadun sallaa qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha yacni alfajri waalcasr. waxau rasuulku leeyahay naarta ma gelayo axadun qof sallaa qabla طuluuci الshamsi tukaday qoraxdu marka ay soo baxayso casarkii ah ka hor, iyo wa qabla salaada subaxa weeye tukada ka hor intaysan qoraxdu soo bixin, iyo wa qabla guruubiha intaysan dhicin ka hor salaadii casarka ahaa qofka tukada naar ma gelayuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam. qofkaa naar ma gelayo. lan yalija annaara lan yalija طuluuci shamsi wa qabla guruubiha ayuu rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam leeyahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa naarta laga badbaadiyo, naarta la isku solayo, la isku dubayo ee la isku gubayo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka badbaadinaya. waxaa loogu deeqayaa janno uu ku raaxaysto, sariiro uu ku dangiigsado, wiilal lagu abuuray jannada oo u khidmeeyo oo u adeego. nicmo meeshay waxay taalloo dhan jannay taallaa. shaqadan adduunyada xoogaa inaad dhigtootaa lagugu talagalay, taasaa lagu helayaa. naar daa'ima iyo janno daa'ima ayay hadhow noqonaysaa. guriga adduunkana waa guri laga tegayo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuuna waafajiyo jannadiisa. calaamadaasi marka waa calaamada lixaad ee qofka muslimka ah waxa weeye haddii uu la yimaado uu naar ka badbaadayo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka badbaadiyo, dadka ha waafajiyo. calaamada toddobaad ee fadliga ay leedahay salaada subaxa waxaa weeye annadaru ilaa wajhi araxmaan. allahu akbar. waxaa addoommadii loogu deeqayaa aragtida ilaahay subxaanahu wa tacaala ay arkayaan. maalinta adduunka allah subxana wa tacaala laguma arko, laakiin aakhiro
addoommo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqaya aragtidiisa oo wejigiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa ay arkayaan. allay arkayaanoo si cayaan bay u arkayaanoo muuqasho ah. allah subxaanahu wa tacaala marti qaadayo dayf bay noqonayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuu marti qaaday, qofku aragtidiisa ugu deeqay waa qof liin weeye. adduunka marka waxaa qofka loo muujinaya oo rasuulku uu noo muujinayaa oo uu noo tilmaamayaa dadkaasi in ilaahay subxaanahu wa tacaala aragtidiisa loogu deeqayo. bal waad garanaysaan wuxuu rasuulku leeyahay sida dayaxa aad u aragtaan iftiinkiisa qiyaamo allah subxaanahu wa tacaala u arki doontaan. tashbiihu ma aha dayax iyo alloo la isku shabahaya, laakiin waxa weeye dayaxaasoo wax idinka ciriiri gelinaya iyo muuqaalkiisii aragtidiisa ummadoo dhan ay arkayso ayaad u wada arki doontaan maalinka qiyaamo. wuxuu odhanaya jariir ibnu cabdillaahi albajali radia allahu canhum kunaa juluusan laylata maca anabiy sala allahu alayh wali wasalam. habeenada ka mid ahaanu rasuulka la fadhinay annagoo caweynayno fa nadara ila alqamari. dayaxa ayuu fiiriyey rasuulku laylata 14 habeenka uu 14 yahay ee uu aadka u iftiimaya dayaxii ayuu dayaxa fiiriyey rasuulka sala allahu alayh wasalam. faqaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulku inakum satarawna rabbakum, waxaad arki doontaan dad yahow rabbigiin kamaa tarawna haada, sida aad dayaxaasi aad u arkaysaan. laa tuqlabuu wuxuu leey laa tudaamuuna fii ru'yatihi, ru'yadiisana aydan isku cariiri gelinaynin oo aydan isku dhibaynin u arki doontaan rabbigiin. fain istatactum, haddii aad kari kartaan oo aad awoodi kartaan oo aad ku dadaali kartaan anlaa tuqlabuu, inaan la idinkaga qaalib noqon, inaanan la idinkaga adkaanin calaa salaatin salaad qabla طuluuci shamsi, marka ay qoraxda soo baxayso horteeda, iyo wa qabla guruubihaa, marka ay dhacayso horteeda, haddaanan la idinkaga adkaanin fafcaluu sameeya, salaadahaas ku dadaala. haddaad aragtida rabbi subxaanahu wa tacaala rabtaan, qoraxdu markay soo baxayso iyo qoraxdu markay dhacayso horteed salaadaha la tukaday casarka iyo salaada subaxa ku dadaala ayuu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waxa uu leeyahay rasuulku fain istatactum anlaa tuglabuu calaa salaatin qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha fafcaluu buu leeyahay rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam. arrinkaasi inaan la idinkaga adkaanin ku dadaala. salaadii subax iyo salaadii casarkii haddii aad ku dadaashaan waxaad mudanaysaan aragtida allah subxaanahu wa tacaala. markaasaa rasuulku wuxuu akhriyey suurad qaaf ku jirto oo wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi wa qabla alguruub. tukaduu yidhi rasuulka allah u tasbiixsada oo hufa. waxa weeye aayaadkaasuu akhriyey rasuulka sala allahu alayh wasalam. aayadda 39 ee suuratu qaaf ku jirta ayuu rasuulku sala allahu alayhi waalih wasalam uu akhriyey. waxay halkaana tusaysaa, waxay noo muujinaysaa khayrka iyo fadliga halkaa yaalla. maalinkaa dambe allah subxaanahu wa tacaala addoommada qofka loogu deeqa aragtidiisa, qofku allahu subxaanahu wa tacaala mu'miniintii hataa marka waxa weeye la keeno oo maalinka qiyaamo jannadii ay kala mutaystaan, wixii naar geli lahaana naartii ay galaan, wixii jannada geli lahaana jannadii ay galaan, ayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam xadiis uu ka Suhayb radia allahu canhu oo uu soo saaraya imaamu muslim ayaa waxa uu leeyahay waxaa nebigu uu ka warinayaa idaa dakhala ahlu ljannati ljanna, ahluljannihii marka uu jannadii uu galo ayuu yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala, ayaa allah subxaanahu wa tacaala baraka badnaayoo sarreeyey wuxuu odhanayaa turiiduuna shay-an, ma doonaysaan shay asiidukum aan idiin ziyaadiyo. fayaquuluuna waxay odhanayaan ahluljannihii jannada la geeye rabbiyow alam tubayid wujuuhanaa, wejiyadannada soomaadan caddaynin, alam tudkhilna aljannata, jannadii soonama aadan geynin, wa tunajiina min annaar, naar nagama aadan badbaadin, waxa kaloo aan raadinayna waa maxay? qaala waxa uu leeyahay fayakshifu alxijaab, allah subxaanahu wa tacaala xijaabkii aragtidiisa qarinayay ayuu iska qaadayaa. famaa ucطuu shay-an, shay lama siiyo maalinkaasi ahluljannaha axabba ilayhim ay ka jacayl badan yihiin min annadari ilaa rabbihim caza wajalla, aragtida rabbi subxaanahu wa tacaala ay arkayaan maalinkaasi wax ka qiimo badan oo maalinkaa lagu abaalmarinayo ma jirto. markaasuu rasuulku wuxuu akhriyey
liladiina axsanuu alxusnaa waziyaada. dadkii waxa weeye wanaagga sameeyey oo jannada la geeyey waxaa lagu abaalmarinayaa ziyaada la siinayaayo aragtida allah subxaanahu wa tacaala. bal u fiiri ahluljannihi waxay odhanayaan rabbiyo wejiyadanadii baad caddaysay, jannadii baaday, naar baad naga badbaadisay. markaase waxa kaloo aan raadinayno waa maxay? waxa ka qiimo badan baa la siinayaayo rabbi subxaanahu wa tacaala inay arkaan baa lagu qiimaynayaa oo la siinayaa. markaasaa wuxuu rasuulku leeyahay famaa ucطuu shay-an axaba ilayhim min annadari ilaa rabbihim, shay ay ka jacayl badan yihiin aragtida allah subxaanahu wa tacaala oo maalinkaa la siinayo ma jirto. taasaa ugu qiimo badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noogu deeqo aragtida allah subxaanahu wa tacaala. waxay arkayaan rabbi subxaanahu wa tacaala, wujuuh baa bishaaraysanaysa maalinkaasi, rabbigood bay u arkayaan oo u muuqanaya. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu daro kuwa wejiyadooda la caddeeyey, kuwa jannada la geeyey, kuwa naarta laga badbaadiyey. fadligaasna waxaa lagu helayaa, fadligaasi salaada subax baa lagu helayaa oo rasuulka sala allahu calayhi waali wasalam uu noo tilmaamay. fadligaasi addoommada waxay ku helayaan salaadii subaxa oo la tukado. fadliga sideedaad ee ay salaada subaxa ay leedahay alajru alcadiim. salaada subax qofka tukada waxa uu kala tegayaa abaalmarin aad iyo aad u weyn. bal caqligaaga soo jeedi, maskaxdaada soo jeedi, miirkaaga soo jeedi. rasuulku waxa uu leeyahay sala allahu calayhi waali wasalam ragcatay alfajri khayru min addunya fiiha. labada ragcadood ee salaada subaxa ka horaysa khayru min addunyaa wamaa fiiha, waxa ay ka khayr badan yihiin adduunyada iyo waxa dhex yaalla oo dhan. salaadii sunnada ahayd ee labadii ragcadood ee salaadii subaxa ka horaysay haddii la yidhi waxay ka khayr badan yihiin adduunyada waxa yaalla iyo adduunyadoo dhan iyo waxa dhex yaalla, salaadii subax ee faradka maxaad mooday marka? waxaa lagu bixinaya marka caqligaaga waxaa halkaa ka garanaysaa haddiiba salaadii subaxa ahayd adduunya kuu sawirneed, adduunye iyo waxa dhex yaalla oo dhan labadaa ragcadood ee salaada subaxa ka horaysa ayaa ka fadli badan baa la yidhi. maxaad qiyaasi kartaa marka in abaalmarin weey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommada ugu talagalay in ay halkaasi ay ka helayaan khayr aad u tiro badan, inay ka helayaan, inay u tahay dadaal iyo abaalmarin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abaalmarinayo khayr adduun iyo mid aakhira uu siinayo. salaada subaxa waxaa lagu helayaa abaalmarin aad iyo aad u weyn. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha nagu siiya abaalmarin adduun iyo aakhiro ha nagu siiya. waxaa taa keenaya marka oo qofka mu'minka laga doonayaa fadligaasi aadka iyo aadka u weyn. waxa lagu helaa waxa weeye waa dadaal, waxa lagu helo waa cibaado weeye, waxa lagu helo waa juhdi aad iyo aad u badan weeye. rasuulkana sala allahu calayhi wasalam bal iska badaaya salaadaha hataa fadhigooda aad masaajidka fadhinaysid ayaaba abaalmarino badan lagu bixinayaa. salaadii gooni loo tukanaya iska badaaya oo rasuulku waatuu leeyahay laa yazaalu axadukum fii salaatin maa daamat isalaatu taxbisuhu. qofkii ka zuuli mayo inuu salaad uu ku suganya intay salaadi xanibayso salaad kale uu sugaya. laa yamnacuhu an yaqliba ilaa ahlihi ila salaat, oysan ka mancinaynin inuu ka gadoomo ehelkiisa ilaa salaad mooye, salaad unbuu uga gadoomaya. arrinkaa waxay noo muujinaysaa rasuulka sala allahu alay slm bal malaa'igtii baa u ducaynaysa. bal khayrka u fiiriya, qofkii fadhi ku-dirirka iyo sheekadii fadhiyey qofkii masaajidka iska fadhiyey way kala tageen. midna malaa'igtii baa lacnadaysa, meelihii fadhi ku-dirirka shayaadiintii iyo qurunkii oo dhan baa kasoo qaybgelaya. kii masaajidka fadhiyana malaa'igtiisa oo nebi maxamed baa wuxuu odhanaya calayhi salaatu wasalaam almalaa'ikatu tusalli calaa axadikum, malaa'igtu waxay u ducaynaysaa oo ay ku sallinaysaa calaa axadikum midkiin maadaama fii musallahu aladii sallaa fiih, intuu fadhiyo musallihii meeshii uu ku tukaday maa lam yuxdith, haddii uusan xadath la imaano neefi aysan ka imaan. malaa'igtii baa waxay odhanaysaa allahuma kfir lahu, allahuma arxamhu, dembi dhaaf, alla u naxariiso, alla u dembi dhaaf, alla u naxariisa bay malaa'igtii odhanaysaa. u fiirso, qofna malaa'igtii baa u ducaynaysa, qofna malaa'igtii baa lacnadaysa. meelaha xunxun fadhi ku-dirirka, qabyaaladda, sheekada, heesaha meelaha lagu hayo shayaadiintii baa soo xaadira, malaa'igtiina way lacnadaysaa. qofna lacnad buu adduunkii kala tegayaa oo uu ku seexanayaa oo kusoo toosaya, qofna malaa'igtii ducadiisii buu ku seexanayaa oo kusoo toosaya. arrimahaasi waxa ayna tusaysaa
waxa ay noo muujinaysaa qofka muslimka ah inuu noqdo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka noqday adduun iyo aakhiro oo uu ku dadaalo cibaadaadka oo uu ku dadaalo wanaagga adduunka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku buuxiyey bixinta iyo salaadaha wax bixinayo waxa khayrka la isugu bishaaraynayo wanaag adduun iyo wanaag aakhira ayaal xataa ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa waxaa ka mid a salaadihii faradka hadday nusqaan ka gasho sunnadinkii baa loo baarayaa oo loogu kabaya waatuu rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam ina awala maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati min camalihi salaatuh fain saluxat faqad aflaxa waanjax wain fasadat faqad khaaba wakhasir fain intaqasa min fariidatihi shayئa qaala rab caza wajala unduruu hal licabdii min taطawucin bal addoonkayga sunnooyin u baarbaaruu leeyahay rasuulka sala allahu alay sl allah oranaya xadiis lqudsigii fayukmalu minha oo loogu kaamil yeelo man taqasa min fariidati waxa ka naaqusay faradkiisii iyo salaadiisii bal sunnooyin u baarbaara loogu kabo uma yakunu saa'iru calaa hada acmaashiisi kala sidaas oo kale loo baarbaaraya si loogu kabo waxyaabihii faradka ahay oo dhan sunnooyinkii baa loogu kabaya khayrkan iyo wanaaggan aad dhegaysanaysid acmaashaadii faradkii iyo waajibkii iyo khayrkii baa lagugu kabaya miisaankii baa lagugu kabaya acmaashii saalixa lagugu raacinaya haddii kale waxaad noqonaysaa ku ilaahay subxaanahu wa tacaala diiday nimcada uu siiyey samaca uu siiyey basarka uu siiyey aan ka faa'iidaysan maxaa yeelay salaada oo laga tago alcahdu aladii baynana wa baynahum alsalaat faman tarakahaa faqad kafar uu yihi rasuulka sala allahu alayh waalih wasalam qofka muslimku waxa uu leeyahay rasuulku cahdiga iyo ballanta annaga iyo ayaga noo dhexayso waa salaada weeye faman tarakahaa faqad kafara qofkii iskaga tegay waa gaaloobay ina bayna alrajuli wa bayna ashirki waalkufri tarki salaad buu rasuulka sala allahu alayh wasalam uu leeyahay waxa weeye ruuxa iyo shirkiga waxa u dhexeeya gaalnimada waa salaada oo laga taguu leeyahay rasuulka sala allahu alayhi waalih wasalam walaalayaal marka arrinkaasi waxa ay noo muujinaysaa khayrka allah subxaanahu wa tacaala uu noogu talagalay wanaagga addoonka allah subxaanahu wa tacaala uu noogu talagalay marka arrinkaasi waxa looga faa'iidaysanaya waxa weeye khayrka ilahay tacaala wanaag adduun iyo mid aakhira uu siiyo fadliga sagaalaad ee waxa weeye salaada subaxa ay leedahay ajru xajatin wa cumrah bal hadalkan aad u fiirsada waxa odhanaya waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixoo rasuulka ka sugan qofka waxaa weeye salaada subaxa tukado qof xajiyey oo cimraystay ajarkiisoo kale oo taam ah oo taam ah oo taam ah oo aan laga nusqaaminaynin baa la siinaya war qofka xajkiisa uu wanaagsanaaday xoolaha uu ku xajiyey ay xalaal tahay acmaasha uu qabanayana sax ay tahay xajkiisana ka ilaaliya waxyaabaha burinaya abaalmarin intee la eg buu helaya abaalmarin aad iyo aad u weyn buu helaya sidaa daraaddeedu rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa uu ku leeyahay imaamu tirmidi uu soo saarayo sheekh naasir uddiin albani raximahu llah saxiixu sunan tirmidi 480 xadiiska raqamkiisu yahay uu ku keenayo rasuulku waxa uu leeyahay man salla alfajra fi jamaacatin qofka salaada subaxa jamaaca ku tukada qacda kadibna fariista yadkuru llah isagoo allah subxaanahu wa tacaala xusaya xataa tatluca ashams ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo uma sallaa ragcatayni kadibna laba ragcadood oo shuruuqa la yidhaahdo culummada qaarna waa taxiya waxay yidhahdaan waa salaatu duxaa qaarna waxay yidhahdaan waa shuruuqa labada ragcadood ee sunnada oo la tukado taasaana ila xoog badan kaanat lahu kaajri xajatin wa cumratin taamatin buu leeyahy rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa qofkaasi u sugnaanaya ka ajarkii qofkii xajinaya oo cimraysanaya ajarka uu helaya oo taam ah oo taam ah oo taam ahoo aan laga nusqaaminaynin ayaa la siinayaa buu leeyahay rasuulka sala allahu alayhi wasalam bal qofkaasi fadligee intee la eg buu helayaa mar alla markuu salaada subax tukadaba loo qoraya qof xajiyey oo cumraystay oo kale abaalmarinta uu helayo ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa abaalkaas iyo abaalmarintaasi khayrka iyo wanaaggaasi lagu abaalmarinayo waa fadli aad iyo aad u weyn weeye waxa lagu kicinayo ee la dareensiinaya waa iimaanka qofka weeye waxa lagu riixaya waa taacaadka iyo khayrka weeye waxa loo tartansiinaya waa sabqi iyo inuu dadka mu'miniinta khayrka u tartamaan shareecadeenna waxyaabaha fadliga iyo liibaanta lagu bixinayo waa wax qalbiga qofka insaanka riixaya oo geynaya iimaankiisana sare ugu qaadaya
ayay ka mid tahay. haddaba fadligaasi in qofka mu'minka uu oo uusan dayicin waxay ka mid tahay abaalmarinta aadka iyo aadka u weyn oo rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam uu noo tilmaamayo. qofka muslimkana waxa weeye xadiisku rasuulku noo tilmaamay qof xajiye oo cimraystay abaalmarintiisoo kale uu helayaa. fadliga noogu dambeeya sida caadada ahayd 10 baynu qaadanaynay. fadliga noogu dambeeya ee qofka mu'minka waxa weeye salaada subaxa uu ku helayaa waxaa ka mid ah inshiraaxu sadri. laabahoo dhan baa loo waasicinaya, qalbigaa loo waasicinaya, cariirigii, dayqii, murugadii, xusnigii, walbahaarkii, isla hadalkii, sheekadii oo dhan baa laga saarayaa, laabtaa loo waasicinayaa. wuxuu rasuulkaa noo tilmaamaya sala allahu calayhi waalihi wasalam, waxa uu leeyahay rasuulku yacqidu ashayطaanu calaa qaafiyati ra'si axadikum, shaydaankaa waxa uu ku xiranayaa midkiin qadaadkiisa idaa huwa naama marka uu seexdo 3 cuqad, 3 guntimood buu ku guntayaay oo ku xirayaa qof walba qadaadkiisa. yadribu calaa makaani kulli cuqdatin, boos walba oo guntintaasa wuxuu ku xirayaa calayka laylun tawiilun farqud, habeenku waa ballaaran yahay oo waa dheer yahay, iska seexuu leeyahayo waswaas buu qalbiga iyo sheeku u gelinayaa. fain istayqada haddii uu kaco oo fadakara allah oo allah subxaanahu wa tacaala uu xuso, in xuqdatun guntin baa ka furmayso. fain tawada'a haddii uu weyse qaato inxallad cuqdatun guntintii labaad baa furmayso. fain sallaa haddii uu tukado inxallad cuqdatun guntintii saddexaad baa furmayso. faasbaxa waxa uu waabariisanayaa nashiitan isagoo firfircoon, طayiba nafsi naftiisuna ay wanaagsan tahay ayuu waabariisanayaa. wailaa asbaxa khabiisa nafsi kasla, waxa uu waabariisanayaa haddii uusan sidaa yeelin isagoo khabiisu nafsi ah, naftiisu ay xumaani ka muuqato oo kaslaan oo caajis ah ayuu waabariisanayaa buu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam. wuu xadiiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam noogu muujinayaa in qofku marka salaada subaxa fa asbaxa nashiitan tayiba nafsi buu leeyahay, wuxuu waabariisanayaa isagoo firfircoon oo tayibu nafsi ah ayuu hurdadii ka kacayaa buu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam. arrimaha waxa ay noo muujinayaan qofka muslimka marka dadaalkaasi uu gelayo abaalmarinta intaa la eg inuu ka helayo. qof walbana waxa weeye naftiisa waxa weeye qof walbana wuu dhaqaaqayaa, mid naftiisa waxa weeye naar ka xoreeya iyo mid waxa weeye naftiisa halaago. xadiiskana rasuulka sala allahu calayhi wasalam waatuu lahaa kullu naasin yaqduu, qof walba wuu kallahayaa, fabaa'icu nafsahu mid naftiisa xoraynaya iibinaya oo famuctiquhaa naftiisa baayacayo iibinaya oo famuctiquhaa xoraynayo alla ka xoraynaya ciqaabkiisa iyo cadaabkiisa ka xoraynaya. oo muubiquhaa ama mid halaagaya, mid walbaa soo kallahaya, subax walbaba wuxuu ku soo kallahayaa meesha cayda lagu hayo, meesha xumaanta lagu hayo, meesha fadhi kudirirka lagu hayo, meesha khayr adduun iyo mid aakhira uusan ka qaadanaynin buu ku kallahayaa. midna wuxuu ku soo kallahayaa meel iimaankiisa iyo diintiisa iyo caqiidadiisa iyo dad walaalo oo mu'miniin oo isugu yimid allah subxaanahu wa tacaala inay isugu kaalmeeyaan khayrka adduun iyo midka aakhiro ayay midna uu soo kallahaya. midna naftiisibuu allah ka iibiyey, diintiisi buu allah subxaanahu wa tacaala u hoggaansamay, midna shaydaan buu naftiisii ka iibiyey. soo labadaasi qof ma kala tegin. qof ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa ka iibiyo naar ka xoraynaya, iyo qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku halaagay cadaab iyo ciqaab naartiisana uu geynayo. arrinkaa marka rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam waxa uu noo tusayaa in qofka mu'minka waxa weeye in uu is-ilaaliyo, uu ku jihaado naftayda iyo naftiinaba aan u dardaarmayo daacada ilaahi subxaanahu wa tacaala. wuxuuna rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam xadiiskii macruufka ah imaamu axmed iyo kayrkii ay warinayeen, sheekh naasirna uu saxiixinayay, wuxuu rasuulku lahaa walmujaahidu man jaahada nafsahu, qofka mujaahidka dhabta ah ee jihaadaya waxa weeye qofka naftiisa la jihaada fii taacati allah,
طاعة إلهي سبحانه وتعالى كحرة إلهي سبحانه وتعالى نفتنا كحرة طاعة الله سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى نفتنا كدغ النار تلقى حرينيو إلهي سبحانه وتعالى نفتنا كدغ كو وحا الدون يا آخرة ددال آخرة يا ددال الدون مد والبابا وحا إلهي سبحانه وتعالى جنديس وكسينيو إلهينا هنغو حريا نارتا إلهينا سبحانه وتعالى هنغا دغو كو عبادتيسا غوتا كو إلهي سبحانه وتعالى وناق الدون يا وناق آخرة أوصيو كو إلهي سبحانه وتعالى أقب بشاريو وناق إلهي سبحانه وتعالى كو كتاب كيسه ورسولك نوت المام مرقاته والرعاء إلهي سبحانه وتعالى هنقدقه كو إلهي سبحانه وتعالى قلبه وذو قرآن وكبع سمي كو إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس أخرينيا كو عمل فليا كو مخلصين تا قصدقي عدالة لقيه لي نارتنا لقى حرية إلهي سبحانه وتعالى هنقدقه اللهم اجعلنا لكتابك من التألين ولك به من العاملين وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين وعن النيران مزحزحين وفي الجنان منعمين وإلى وجهك الكريم الناظرين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وكفر عنا به السيئات وهون علينا به السكرات عند الممات اللهم وكما جعلتنا به من المصدقين فاجعلنا فيه معتبرين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين اللهم وأوجب لنا به الشرف والمزيد وألحقنا بكل بر سعيد ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه اللهم واجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين وإليك في جميع أمورنا راجعين اللهم اجعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه والتزموا حكمه وما فارقوه وأرادوا بتلاوة وجهك الكريم والدار الآخرة فقبلت منهم ذلك وأورثتم المنازل الفاخرة اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحسا وعن النار مخلصا اللهم هب لنا رعاية حقه اللهم هب رعاية حقه وحفظ آياته وعملا بمحكمه وإيمانا بمتشابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجزاكم الله خير إن شاء الله تعالى علماء كلا كسور دوادان وأنكم ما سنتين خير الدنيا خير آخرة نؤذين دردارمي إلهنا سبحانه وتعالى هنقدقه هو الدنيا آخرة اسكو جعل هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.